السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa barta horyaalka shacabka ee YouTube mar kale iyo kulan wanaagsan. Maanta waxaan ka hadli doonaa dad badan ayaa su'aalo isoo weydiiyay oo bartayda YouTube ku xiran. Dadka badankood waxay ka hadlayaan arrimo guuritaan. Marka waxay doonayaan dadka qaar inay guuraan magaalada ay degan yihiin ka guuraan magaalo kale u guuraan. Haddaba maanta muuqaalkan waxaan isku barbar dhigi doonaa waxay tahay magaalooyinka waaweyn ee markaa dadku degan yihiin iyo tuulooyinka muxuu yahay farqiga u dhaxeeyo magaalo weyn iyo magaalo yar. Tusaale kale marka magaalo weyn aan leeyahay oo kale waxaan ka hadlayaa magaalooyinka aad ka waaweyn sida dalka Jarmalka oo kale ku yaalo kale sida magaalada Frankfurt oo kale magaalooyinka aad ka waaweyn kamid ah Cologne, Düsseldorf, Kassel ama Berlin ama magaalooyinkaas aad ka waaweyn baa ka hadlaya iyo magaalooyinka yaryar ee markaasi tuulooyinka ay Soomaalidu u badanaa ay u garanayso. Marka muxuu yahay farqiga u dhaxeeya muuqaalkan waxaan kusoo koobaya waxay tahay faa'iidada magaalooyinka waaweyn ay leeyihiin iyo khasaarada ay leeyihiin. Sidoo kale magaalada yar tuulooyinka khasaarada ay leeyihiin iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin. Marka waxa laga rabaa haddii aad degan tahay tuulo yar inaad muuqaalkan daawatid isla markaana isku barbar dhigtid farqiga u dhaxeeya magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka. waxa laga yaabaa dadka badankood ee tuulooyinka degan in ay aad u jecel yihiin inay guuraan. dadka qaar baa waxay leeyihiin ama dadka qaar baa waxay dhahaan haddii aan sharci helo waxaan doonayaa inaan magaalo weyn dego oo dad badan ay degan yihiin waa sidaan hamigoodu waxa uu yahay badanaa in ay dadku degaan magaalooyinka waaweyn siiba caasimadaha inay degaan. marka maanta muuqaalkan haddaad daawatid wax badan baad ka faa'iidi doontaa. aniga huba si degan muuqaalka u daawo koobkaaga shaaha u soo qaado insha Allah wax waaye waan filayaa inaad wax badan ka faa'iideysid. ku soo dhawo mar kale oo muuqaalka oo dhameystiran. waxaan ku hormari doonaa wax tahay faa'iidada ay leeyihiin magaalooyinka waaweyn. magaalooyinka waaweyn faa'iidooyinka ay leeyihiin horta waxa ugu horeysa waa magaalooyin badanaa shaqo laga helo. shaqo ayaa aad u buuxda. marka magaalo weyn haddii aad degtid shaqo ayaad horey ka helaysa. taas waa faa'iidada koowaad. faa'iidada labaadna maxay tahay bulsho badan. magaalooyinka waaweyn dad baa aad u degan. waxa laga yaabaa oo kale dadkeena Soomaalida aad bay u jecel yihiin magaalooyinka waaweyn inay degaan. ma garanayo sababta u geyso qofka inuu magaalo weyn jeclaado laakiin aad bay u jecel yihiin inay magaalooyinka waaweyn ay degaan. marka haddii aad magaalo weyn degtid dad badan oo bulsho ah oo Soomaali iyo dad yoo kala duwan ayaa la kulmaysaa. marka taasna waa faa'iidada labaad oo la dhihi karo magaalo weyn way leedahay. qodobka saddexaad ee ay leedahay ee faa'iidooyinka waxaa ka mid ah dukaan walba ayaa ku yaala. wax walba oo aad u baahan tahay magaalo weyn waad ka helaysaa. dukaan walba oo aad alaab uga baahnaan jirtay oo kale oo aad raadin jirtay oo kale way ka buuxaan. marka saddex qodob oo faa'iido ah oo magaalo weyn ay leedahay ayaan halkan kugu hayaa. marka ugu horeysa qodobka koowaad nolosheeda oo aad u adag. macnaha tusaale kale kirooyinka guryaha kale aad bay qaali u yihiin magaalada weyn. sababtoo ah magaalada weyn badanaa waxa yimaada dad dalxiisayaal ah dad wadamo kale ka yimid baa yimaada. marka maadaama ay dad wadamo kale ka yimid ay yimaadaan oo si dalxiis ahaan u yimaadaan wax walba oo magaaladaasi waa qaali. waxyaabaha qutul duruuriga badankood waa qaali. sababtoo ah waad aragteen airportka markaad tagtid oo kale biyaha yarka qiimaha markay dukaamada caadiga magaalada aad ka gadanayso oo kale €1 laga siinayo airportka markaad tagto waxa laga yaabaa €3 €4 in laga siiyo. marka waad dareemi kartaa macnaha farqiga u dhaxeeya €3 iyo €1 waad dareemi kartaa. sidaas darteed magaalo weyn markaad degtid sicirku sidaas oo qaali u yahay.
ilaa magaalada waxaa imaanaya dad ajaanib ah, dad kala duwan oo markaa saddexiis ahaan u imaanaya. marka dadka markaa magaalada degan waxay wax ka raadinayaan waxa waaye dadkaasi sidii wax uga gadan lahaayeen, waxayna qaali uga siin lahayn ilaa magaalada nolosheeda ayaa qaali ah. waa qodobka koowaad. qodobka labaad waa nadaafad darro. magaalo weyn haddaad tagtid nadaafad uguma imaanaysid, sababtoo ah magaalo weyn waa magaalo bulshadu aada ugu badanta. sidoo kale magaalada weyn waxaa badanaa ku badan dadka daroogada aada u isticmaala. marka magaalo weyn iyo nadaafad badankood iskuma dhow. tusaaloo kale magaalada meelaha dadkii iskugu yimaadaan oo kale, xaafadaheeda oo kale markaad tagtid oo kale aada bay nadaafadeedu u foolxuntaa runtii. ma jeclaanaysid markaad maraysid, aada bay indhahaagu ma jeclaanaya. marka magaalo weyn ugu imow nadaafad darro. waa boontiga saddexaad. waa boontiga labaad. boontiga saddexaad waa qaylo, buuq, sharqan aada u tiro badan. sababtoo ah magaalada weyn waa magaalo aada u saxmad badan. waa magaalo dadkeedu aada u badan yahay. waa magaalo baabuurteeduna aada u tiro badanta. sidaas darteed magaaladu mar walba buuqeeda, qayladeeda ayaa aada u tiro badan. marka waxaa laga yaabaa haddaad ku cusub tahay inaysaba hurdaba kaa soo dhicin oo aad ka timid tuulooyinka ama meelaha dadku aadka ugu yaryihiin oo kale. waxaa laga yaabaa dhowr habeen inaysa hurdo kaa soo dhicin. marka magaalo weyn ugu imow saxmad iyo qaylo aada u tiro badan. waa 3. sidoo kale waxaa ka mid oo kale farabadnida dadka. dadku aada bay magaalada weyn u degan yihiin, aada bayna u fara badan yihiin. sidaas dadku wadooyinka aada bay u yaacayaan, u socdaan, way isdhaafdhaafayaan. waxa waaye waa magaalo weyn, waa magaalo saxmad badan, waa magaalo dadkeedu aada u badan yahay. marka waxyaabaha markaa annaga maadaama aan qaxootinahay aan dhibaatada weyn noo geysanayso oo magaalo weyn haddaan tagno aan kala kulmi karno oo aada noo saameynaya waxay tahay midda buuqa, nadaafad darrada, saxmadda tirada badan iyo waxyaabahaas oo dhan dadka kale ayaan la wadaagnaa. laakiin waxyaabaha annaga aada noo saameynayo oo kale waxaa ka mid oo kale magaalada weyn way ku yar tahay ballamaha dhaqaatiirtu. macnaha in dhakhtarku ballan si fudud kugu qabto aada bay u yartaa, sababtoo ah magaalada weyn dad aada u tiro badan baa degan. sidaas darteed dhakhtarka waxaa laga yaabaa maalintii intaasoo qof inuu qaabilayo. marka waxaa laga yaabaa ballan haddaad ka dhigatid dhakhtarkaaga inay kugu qaadato muddo bilooyin ama bil ama adiga bil kale barkeed. halka laga yaabo dhakhtarkaaga caadiga ah markaad tuulooyinka ama meelaha qaar aad degan tahay oo kale in markaad maanta wacdi uu berito iyo ima ku yiraahdo oo kale. marka magaalo weyn dhakhtarkeedu muddo dheer ayay kugu qaadanaysaa inaad ballan uu ku dhigo ayay qaadanaysaa. waana waxyaabaha aadka annaga noo saameynaya. waxaa kaloo ka mid oo kale sharciyadoo kale. magaalo weyn sharcigeedu aada buu adag yahay. sharciyada aada bay ugu adag yihiin magaalooyinka waaweyn, si fudud runtii kuma bixiyaan. sababtoo ah magaalada weyn waxa waaye xafiisyadeeda maalintii halkii xafiis waxaa soo booqanaysa intaasoo qof. marka qofkii waxaa laga yaabaaba danba inuusaba ka gelinba adiga xaaladaada iyo noloshaada iyo waxaad u baahan tahay uusan fiirinba, oo asagu macnaha uu ku yiraahdo keli ah sharci ma bixinayo ama sharci kuma siinayo kale uu ku yiraahdo kale. marka sharciga dhankiisa aada bay runtii ugu adag tahay magaalooyinka waaweyn ugu adag yihiin oo kale. marka ballamaha sidoo kale ballamaha xafiisyada dowladda oo kale annaga aada baan ugu baahannahay runtii. ayaga laftirkooda aada bay ugu adag yihiin oo magaalooyinka waaweyn ballamaha xafiisyada aada bay ugu adag yihiin. marka bal intaasi waa faa'iidadii iyo khasaaradii. faa'iidadii oo aan ugu horumarsiiyey iyo khasaaradii ay lahayd magaalo weyn waa. marka magaalo weyn halkaas uga soo gudbo. marka tuulooyinka baan fiirinaya. tuulooyinka intii ay khasaaro ay lahayd magaalo weyn intuba iyagoo faa'iido ah ayay tuuladu leeyihiin. sababtoo ah tuuladu waxay leedahay hawo aada u fiican, dadkeedu aada buu u yaryahay runtii. waa hawo aada u fiican bay leedahay.
maanta haddaad family tahay ilmahaagu meel kugu ciyaaraan bay helayaan, baabuur tiro badan ma lahan, sidoo kale nadaafadeedana markaa fiirisid aad bay u nadaafad badan tahay tuulada. inta magaalada weyn faa'iido la-aanta ay leedahay magaalada weyn, tuulooyinka faa'iiday u tahay way leeyihiin. tusaale oo kale annaga waxyaaba aadka noo saameynayo oo kale u baahannahay waxaa kamid oo kale dhanka sharciyada oo kale aad bay ugu fududahay tuulooyinka inay dadka siiyaan. marka waad aragteen dad badan oo wax jira xataa magaalooyinka waaweyn degan oo sharci aanan helin kadib markii ay guureen oo tuulo ay deganna sharci heleen. marka sidoo kale ballamahoo kale aad bay u fududahay inaad ballan heshid oo dhakhtarkaaga aad ka heshid. dhakhtarka waxaa laga yaabaa xafiiskiisaba inuu maalintii ugu yaraan 2 qof 3 qof uu qaabilo, waa maalintii oo dhan uu baagamuudaba iska ahaadaba xafiiska iska fadhiyo. xafiisyada dowladda kale sidoo kale sababtoo ah magaalada way yar tahay, magaalo aad dadkeedu aad u tiro badan yahay ma aha. marka faa'iidadeeda horta waa intaa aan qasaarada ee magaalada weyn ay leedahay ayay faa'iido ay u leedahay tuulooyinka oo ay leedahay. marka qasaarada markaa tuulooyinka ay leeyihiin maxaa kamid ah? sidoo kale tuulooyinku ma lahan dukaan walba oo aad u baahan tahay oo alaabaha kala duwan aad uga baahan tahay oo kale ma lahan tuuladu. waa halka qasaaro ee badanaa dadka ay ka cawdaan, sababtoo ah tuulooyinka badanaa waxaa ku yar dukaamada aad ku waaweyn aad bay ugu yar yihiin runtii markii la fiiriyo. sidoo kale tuulada halka cilad oo kale oo ay leedahay waxaa kamid oo kale baabuurteedu way yar yihiin. basaska oo kale xilliga loogu talagalay oo kale waqti aad u dheer baa u dhexeeya. marka basaska oo kale waxaa laga yaabaa inay tuulooyinka badanaa ay ku yar yihiin. marka waa 2 cilad bis ayay leedahay tuulada. waa midda aan soo sheegay oo ah dukaamada, iyo midda aan soo sheegay basaska iyo basas la-aanta ama tareen la-aanta ka jirto kale. waa labadaas qasaaro, laakiin inta kale oo dhan way ku fiican tahay. marka haddii uu ra'yigaagu ama fikirkaagu ahaa adoo tuulo degan inaad magaalo weyn u guurtid, bal fiiri faa'iidada ay leedahay magaalada aad degan tahay iyo magaalada aad u guureysid faa'iidada ay leedahay. isku fiiri haddana qasaarada ay leedahay magaalada aad degan tahay iyo qasaarada ay leedahay magaalada weyn inta aadan gooyin ka hor. marka annaga Soomaali haddaan nahay badanaa waxaan dhahnaa waxaan jecelnahay magaalo weyn, waxaan jecelnahay caasimadda inaan u guurno, laakiin xisaab ma jirto meesha. qofkii ma fiirinayo ma isdhahayo war maantay adigu ma tiid qof wadankan u dhashay. waxaa laga yaabaa xataa luqadda inay dhib kugu tahay oo waxyaabo badan aad garanin. saas darteed inaad maanta orodid oo meesha magaaladii aad degneed ka carartid oo magaalo kale aad tagtid, dhibaatada iyo qasaarada kala kulmaysa ma taqaanid. markii hadhow aad magaaladii aad degtid oo waxyaabo badan ay kugu furmaan, albaab walba uu ka soo xirmaad indhihii taagtaagaysa, markaas waxaad leedahay allah magaaladii aan degnaa wallaahi ayadaa ii fiicneed, sidaan bay ii ahayd, haddaan aan kasoo guuri lahayn magaaladeeda waa hadda ma u noqda. markaas shalayta aad galaysaa. marka walaal intaada shalayta intaada gelin marka hore ka fiirso, fadlan ha ku degdegin magaalo weyn inaad degtid. tuuladaada wax kaaga wanaagsan runtii ma laha. sharci ka qaado waxyaabaha ilmahaaga waxbarasho fiican ayay badanaa xataa tuulooyinka ay leeyihiin waxbarasho aad looga helaa. magaalooyinka waaweyn waxaa laga yaabaa maanta markaad guurtid ugu yaraan 1 sano kaliya inaad iskuul ama ka badan inaad iskuul ama kindergarten ilmaha aad u raadis. waa waqti aad u dheer. marka fadlan intaadan falin ka fiirso. taas waa iga waana iga wax sheegay. runtii dad badan oo waxaa jira xataa magaalooyinka waaweyn degan oo maanta doonaya inay tuulooyinka u guuraan, halka kuwii tuulada ay degnaan ay rabaan inay magaalooyinka u guuraan. marka intaas ayaan kusoo goobayaa maadaama dhowr qof ay soo weydiiso tiri inaan guuraan rabaa, inaan sidaan sameeyaan rabaa. waxaan dhihi lahaa muuqaalkan daawada hadduu idin anfacana qaata insha allah, wixii idinka anfaca ka qaata, wixii kalena ka taga insha allah. muuqaalkii intaas kusoo gabagabeynayaa barteeda youtube-ka ee horyaalka shacabka. fadlan subscribe iyo saar, waa ii muhiim. sidoo kale commentiga iyo fikirkaaga mar walbana waa loo baahan yahay. thank you, waa mahadsantiin.